ma ogtahay inuu jiro xubin kamida gabadha jirkeeda oo haddii aad ka taabato oo aad saameyn ku yeelato adiga mooyee qof kale aysan jeclaanaynin. haddaba barnaamijkeena gudaha oo galno maanta ku soo dhawaada barnaamijkeena janaalkeena haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar waa mahadsantahay walaal. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ciwaan muhiim ah oo ah sidee qofka jaceylka aad u sheegatay ama jaceylka u bandhigatay saameyn ugu yeelan kartaa. jaceylka waa wax jira waana adduunka dhan jaceyl uu ku dhisan yahay. ilaahayna wuu sheegay, nabi maxamedna wuu sheegay. adduunyaduna jaceyl la'aan ma sii socoteen, maxaa yeelay laismana guursadeen, dadna ma dhasheen, adduunyadana dad ma ku soo biireen. haddaba xubinka aan rabno inaan maanta ka hadalno gabadha haddii aad ka taabato aad saameyn ku yeelanayso waa xubinka lagu magacaabo qalbiga. qalbiga waa xubin ka mid ah xubinaha jirka ku jira, waana xubinka hogaamiya oo aasaasiga u ah jirka dhan iyo bini'aadanka dhan, maskaxdiisa iyo maamulkiisa dhan waa xubinka hogaamiya. haddaba sidee qofkan qalbigiisa saameyn ugu yeelan kartaa? waxaan kuu soo gudbinayaa 5 qodob oo saameyn aad ugu yeelanayso haddii aad samayso, waa haddii aad samayso insha Allah. qodobka koowaad waa dhoolla cadeynta. qofkan markaa la joogtid aad u sheekeynaysid aad la hadlaysid inaad dhoolla cadeysid, farxad inuu agtaada ka dareemo oo dadka kale aad uga duwanaatid. qodobka ku xiga waxaa waaye qofkan inaad joogtaysid xiriirkiisa. waa inaad qofkan mar walba la hadashid, waqti aad gelisid, maxaa yeelay wax aan waqti la gelin lama helo. waa inaad qofkan waqti gelisid, aad la hadashid, maalin walba waa inaad waqti siisid. laakiin isbuuci hal mar qof aad la hadashay saameyn kuma yeelan kartid. weliba xilliyada waa kala duwan. xilliga jiifanayso kale inaad dhahdid habeen wanaagsan, qofka ugu dambeeya la hadasho noqotid. xilliga ay soo kacayso sidoo kale, ama xilliga uu wiilku soo kacay, gabadhana sidoo kale waa, ama xilliga uu qofkaas soo kacay inaad dhahdid subax wanaagsan, see ku soo barisay, subax wanaagsan, aad wareysatid caafimaadkiisa. qodobka saddexaad waxaa waa qofka inaad xushmad u muujisid. tusaale kale qofka markaa la hadlaysid inaad xushmad u muujisid oo telefoonka kale aan isticmaalin. hadalkiisu macnaha inuu qadarin u muujisid, hadalkiisa hadal aad u baahan tahay inuu yahay inaad qofkan u muujisid. midda labaad waa naxariis. qofkan inaad u naxariisatid. gabadha aad jeceshahay ama wiilka aad jeceshahay waa inaad qofka walaalka oo kale ula dhaqantaa. waxa adiga jeceshahay in lagu dhaqmo ula dhaqantaa. waa inaad qadarisaa mar walba, waa inaad u naxariisataa, waa inaad mar walba aad naxariis u muujisaa, si walba aad ugu naxariisan karto. qodobka afraad waa kaas. qodobka shanaad haddii aan u gudbo wuxuu noqonayaa inaad kula dhaqanka saxda oo aad leedahay. maxaa yeelay qofka waa isjeceshiin, hadhow marka is heshaan haddii aad dhaqankii aad hadhow aad lahayd aad ka bedeshid, isku dhacaya imaanaya. dhaqanka saxda oo adiga leedahay ku dhaqan. waa mahadsantihiin walaalayaal. janaalkeena subscribe dhaha, siina share gareeyo. assalaamu calaykum.